Axmed Diidaad waxa uu ku dhashay magaalada Surat ee dalka Hindiya sanadii 1918. 9 sano kadib Axmed Diidaad waxa uu u soo wareegay dalka Koonfur Afrika oo uu aabihiis joogay. Isla sanadkaasna waxaa geeriyootay hooyadiis oo ku sugnayd dalka Hindiya. Axmed Diidaad oo aan helin waxbarashadii aasaasiga ahayd welina ay duruufaha dib u xajinayaan ayaa bilaabay iskuul ku yaala magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika. markii uu gaaray fasalka 6aadna waxa uu ka haray iskuulkii kadib markii uu awoodi waayay qarashkii waxbarashada. isaga oo 16 sano jira ayuu bilaabay inuu ka shaqeeyo dukaan lagu iibiyo miisaska iyo kuraasta iyo qalab xafiiseedka. waxaa meel dukaanka uu ka shaqeeyo ka soo horjeeda tababar iyo duruus ka bixin jiray culimo masiixiyiin ah oo diinta Kirishtaanka faafiya. waqtigaasna waxa uu ahaa waqti diinfaafiyaasha Kirishtaanku ay aad uga kalluumaysan jireen muslimiinta aan diinta Islaamka aqoonta badan u lahayn. Axmed Diidaad waxa uu dhowr mar tagay goobta tababarada iyo seminaarada ay ka socdaan. waxa uu u koorgalay xaaladda dadka muslimiinta ah ee waqtigaas waxaa qalbigiisa taabtay hagardaamada muslimiinta lagu hayo iyo sida ay u dareen la'yihiin. wiilkii yaraa ee awoodi waayay inuu dugsiga hoose dhammaysto lacag la'aan awgeed waxaa ku dhashay fikir weyn oo ah badbaadin ummad iyo jiil Islaam ah. waxa uu bilaabay inuu ka qayb galo muxaadaraadkii masiixiyiinta. waxa uuna weydiin jiray su'aalo adag oo xujooyin cadcad wata. ma lahayn aqoon diinta Islaamka ah, kaliya caqligiisa ayuu kula xujeetami jiray. heer markii dambe uu gaaray in laga celiyo albaabka goobaha seminaarada si uusan su'aalo adag u weydiin culimmada Kirishtaanka ah ee muslimiinta kale diintooda u akhrinaya. waxa uu go'aan ku gaaray inuu dowrkiisa muujiyo una fashiliyo beenta ay sheegayaan baadariyaasha Kirishtaanka ah ee malaayiinta dollar lagu maalgeliyo bil walba sidii ay u faafin lahaayeen diinta Kirishtaanka. waa go'aan adag oo ka yimid wiil yar oo aan waxba haysan oo waxbarashadii ka haray lacag la'aan awgeed. aabihiisna uu yahay harqaanle weliba waddanka la jooga. ma haysan lacag uu ku galo jaamacad iyo iskuullada waaweyn ee Islaamiga ah, balse rabitaanka qalbigiisa ku jiray ayaa ka weynaa. waxa uu bilaabay inuu akhristo buugaagta iyo kutubta diiniga ah siduu naftiisa wax u baro. buug ciwaankiisu yahay Idhaarul Xaqi ee uu qoray Raxmatullaahi Qiirinaawi ayaa gacantiisa soo galay. waa buuggii taabtay qalbiga Axmed Diidaad ee hurdada ka kiciyey. waa buuggii ku baraarujiyey inuu u kaco oo uu bilaabo ficil dhab ah. waxa uu bilaabay inuu si qoto dheer u akhriyo kutubta diiniga ah ee luqadda Ingiriiska ku qoran maadaama luqaddaas uu si fiican u yaqaanay. ma haysan lacag uu madaraso ama dugsi ku tago, hase yeeshee arrintaasi ma aysan caajis gelin Sheekh Axmed Diidaad. turjumaadda qur-aanka ayuu dusha ka bartay. Saxiixul Bukhaari, Muslim iyo kutub kale oo axaadiista ah ayuu daraaseeyey. markii uu intaas si fiican u daraaseeyey ayuu kitaabka Baybalka u soo jeestay. waxa uuna u bartay inuu kula dagaalamo kitaabkooda. muxaadaradii ugu horeysay oo uu qabtay waxa uu qabtay sanadkii 1942. muddo kooban kadibna waxa uu noqday in ay ka dhuntaan culimmada faafisa diinta Kirishtaanka ee magaalada Durban oo ahayd xarun ay aad uga xooganaayeen. sanadkii 1957 waxa uu asaasay Islamic Propagation Center International oo ahayd hay'ad weyn oo ka shaqeysa faafinta diinta Islaamka. waxayna si bilaash ah hay'adiisu ku bixin jirtay kutubta diiniga ah guud ahaan, gaar ahaan kuwa isbarbardhigga diimaha ku saabsan. wixii ka dambeeyay 1980kii Sheekh Axmed Diidaad waxa uu bilaabay inuu u safro qaaradaha Yurub, Ameerika, Afrika, Aasiya iyo Australia si uu dood-diimeedyo ula yeesho baadariyaasha ugu miisaanka cuslaa ee diimaha kale. intii u dhaxaysay 1985 ilaa 1995 Sheekh Axmed Diidaad waxa uu u safray sidoo kalena doodo kula yeeshay culimo looga dambeeyo diimaha Kirishtaanka iyo Judaismka dalal ay ka mid yihiin USA, Britain, Pakistan, India, Sweden, Sacuudi Carabiya, Masar, Denmark, Canada, Australia iyo wadamo kale oo badan. muxaadaraadkii iyo doodihii Sheekh Axmed Diidaad ilaa iyo hadda waxaa laga daawadaa muuqaalbahayaal caalami ah, waxaana weli laga heli karaa barta muuqaalada lagu kaydiyo ee YouTube-ka. dadkii uu doodaha la galay waxaa ka mid ahaa James Swaggart iyo Robert Douglas oo ka mid ahaa dadkii looga dambeeyey faafinta diinta Kirishtaanka iyo kuwo kale oo badan. waxa uuna u dhigay cashar lama iloobaan ah oo ilaa iyo maanta ay xasuustaan
dadka muslimiinta ah iyo culimmada faafiya diimaha kaleba. sanadkii 1986 waxa uu ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee boqor Faysal, waxa uuna abaalmarintaas ku mutaystay faafinta iyo fidinta iyo difaacidda diinta Islaamka. abaalmarintaas waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay abaalmarinta ugu qiimaha badan caalamka Islaamka. buugaagtii uu qoray Sheekh Axmed Diidaad oo lagu qiyaaso in ay ka badan yihiin 20 buug ayaa ilaa iyo maanta laga heli karaa maktabadaha caalamka, waxaana marka laga soo tago muxaadaraadkiisii buugaagtiisa ku soo islaamay dad aad u tiro badan. wadankii ugu dambeeyay ee Sheekh Axmed Diidaad uu aado meel ka baxsan Koonfur Afrika oo ahaa hoygiisii waxa uu ahaa safar uu ku tagay dalka Australia sanadkii 1996. markii uu ka soo laabtay safarkaasba waxaa haleelay cudur loo yaqaan stroke oo maskaxda ku dhaca. cudurkaas ayaa sababay in Sheekh Axmed Diidaad uu dhaqaajin waayo jirkiisa, waxa uuna ku soo aruuray sariirta, xitaa waxa uu awoodi waayay inuu hadlo. dalka Sacuudiga ayaa loo qaaday si loogu daaweeyo, hase ahaatee dhaqaatiirtii waxa ay sheegeen in xaaladiisu ay aad u daran tahay. 10 maalin kadibna uusan sii noolaan doonin. muddo 9 sano ah ayuu sidaas u xanuunsanaa, ma awoodin inuu socdo, hadlo ama fadhiisto. waxaas oo caqabad ah umaysan diidin inuu diinta Islaamka dadka baro. muddadii 9 sano ahayd ee uu xanuunsanaa waxaa Sheekh Axmed Diidaad uu ardaydiisa iyo qoyskiisaba kula hadli jiray indhaha. darbiga qolka uu jiifo ayaa sheekha loogu dhajiyey boor ay ku qoran yihiin dhammaan xarfaha alfabeetada luqadda Ingiriiska ah, waxaana boorkaas ku xirnaa qalab aqrinaya xarfaha uu indhaha ku fiiriyo sheekha. sidaasi ayuuna ula xiriirayay muddada 9 sano ahayd reerkiisa iyo ardaydiisa oo uu ka mid ahaa Dr. Saakir Naik oo aad inta badan wada taqaanaan maanta. 8 bishii Agoosto sanadkii 2005 ayuu geeriyooday Sheekh Axmed Xuseen Diidaad kadib markii uu 9 sano xanuunsanaa. ilaahay ha u naxariisto, qabrigiisana ha u waasiciyo Sheekh Axmed Diidaad.